بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبada iga daawanaya barahayga bulshada qaybaheeda kala duwan idilkiinba waxana wanaagsan halkan waxaan idinkaga bilaabi doonaa haduu Rabbi raali ka noqdo barnaamij aan si gaar ah uga hadli doono heshiiska caalamiga ah oo dadka naafada ah si bulshada aan in badan maskaxdooda ugu bixino waxyaabo qaar ee dadka naafada ay ka aaminsan yihiin iyo sidoo kale xaq bulshada ay leeyihiin inaan barno ee naafada ah insha Allah ta'ala barnaamijkaas qodob aan u dul istaagi doono muhiimadda heshiiskan wuxuu ka dhaqan galaya wadamada federaalka ah wadamada xubnaha ka ahna waxa qayb ka ah wadankeena Soomaaliya marka ujeedada marka heshiiskan laga leeyahay qodobka koowaad maanta waxaan kaga hadlaynaa ujeedada heshiiskan laga leeyahay muxuu yahay taas oo aan rabno in bulshada ay fahmaan ujeedada heshiiskan waxay tahay in lagu hormariyo maadada koowaad ujeedada heshiiskan laga leeyahay yaa waxay tahay in lagu hormariyo yaasa lagu hormarinaya heshiiskan iyo qosaya dadka naafada ee Soomaaliyeed in lagu hormariyo laguna difaaco laguna adkeeyo sidii dadka naafada ay u heli lahaayeen oo ay si buuxda ugu raaxaysan lahaayeen dhammaan xuquuqul insaanka iyo xorriyadaha aasaasiga in la adkeeyo lagu difaaco sidii dadka naafada oo ay si buuxda sidii dadka naafada ay u heli lahaayeen oo ay si buuxda ugu raaxaysan lahayn dhammaan xuquuqul insaanka iyo xorriyadaha aasaasiga ay leeyihiin maxaa yeelay qofka naafada ah waxa laga yaabaa in uusan helin waxbarashadii qofka laxaadkiisa qabay oo u baahnaa hadii ay aan la dhigis Quraanki iyo waxbarashadii kale sidoo kale inuusan helin xuquuq badan oo dalka iyo dadkaba uu ku lahaa taasi oo faham fiican in laga yeesho u baahan aan aaminsanahay hadii bulshadeena si fiican loo fahamsiyo heshiiskana wax badan iska bedeli doonaan sidoo kale lagu horumarin lahaa xaq sharafeedka ay la dhasheen iyo sidoo kale sidii lagu horumarin lahaa xaq sharafeedka ay la dhasheen waayo qof walbo bini'aadama Ilaahay subhanahu wa ta'ala karaamad gaar ah ayuu siiyay dadka naafadana hadda naafnimadooda ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala si gaar ah ugu sharfay sidoo kale dadka naafada ah waxay ka kooban yihiin kuwa muddo dheer ay ka haysato dhibaato kuwa muddo dheer dhibaato ay haysato ama caqabado jir ahaaneed kuwa muddo dheer ay haysato ay ka kooban yihiin maskax ahaan kuwa maskaxda ay dhibaato ka haysato ayaa sidoo kale ku jira sidoo kale garasho ahaan ama ay bahaystaan dhibaatooyin marka ay la falgalayaan dadka kale garasho ahaan ama dhibaatooyin kale waxa haystaba marka ay la falgalayaan dadka kale ay ka haystaan kuwa oo laga yaabo inaysan aaminsaneen in qofka naafada uu leeyahay xaq la mid ah kan iyaga ay leeyihiin dhibaatooyinkaasi oo u diidaya in bulshada inteeda kale si siman ula dhaqmaan marka dhibaatooyinkaasi waxay keenayaan in bulshada inteeda kale ay si siman ula dhaqmaan ayay abuureysaa taasi si loogu hortago ayuu heshiiskan ujeedada uu ka leeyahay iyo dhammaan qodobada kale aan ku soo sheegay ayuu heshiiskan ka hadlayaa qaybta koowaad ee barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku ekeenayaa wixii aragti iyo faalooyin qaybta hoose commentiga ayaad nagu reebaysaan inta barnaamijkan mid ka xiga aynu ku kulmi doono walaalkiin waa saaxiibkiin Ismaaciil Maxamed Sidcali Ismaaciil Aqila oo idin leh amaana Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh